وهوتل مرتسور مقالة هجرو وبندق بوق السويال كور باهنتا وقرر ربي نحريستي جنها كورا بيروق عداس عافضيد محمد آدن حرسي تيرا أنا كسو قيب قليل مسؤولين كترسان دولة بونتلان قولها حكومة برلمانكا قيبها كلا دوان بالشدا وقرأي مسؤوليتي كلا دواني ديكا قيب قشي مدشا لغوسو بندقية بوغ السويال كور باهنتا وقرأي ربي نحريستي جنها كورا بيه محمد آدن حرسي تيرا رقع ديس حافظيد أيها هذا الكود سيدان أوليغي runahaantii si fiican baan teera isu naqaanay waa wada shaqaynay muddo badan waa wada shaqaynaynay haddeertaan laftigeeda agaasimihii hore ee TV-ga Puntland muddadii uu ahaa waxaa jooga hadda oo agaasimo ka ah jaamac nin la yidhaahdo jaamac axmed jaamac buurte oo meeshuu joogay hadda jooga iyo dhammaan raggii la shaqaynayay sida guuleed kusow cabdinaasir dhammaantood raggaasina ay xafladii London ay ka dhigeen ay sameeyeen waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo oo ahayd warbaahinta iyo kaalinta ku lahaa run ahaantii oo halkan lagu soo koobi karin annaga 2008 waxaan qaaday hay'adda Care Asli iyo gruubkeeda Care ahayd markay la qaadeen ka bacdigeed waxaan la geeyay Nairobi waxa wakiil xafladan oo buug furaan isku nimid buug hal fure anu hadda kale inta hadda aan joogay idinka raaliga ah kala waxaan u maleynayaa intaas istaahiyada inoo ku filan buugga waan fiiriyay hadda anu intaan joogay aan gatay baan isha mariyay methodology-ga buuggu ku qoran yahay runtii waa dariiqo aad iyo aad qiimo ah sareyso weeye buugtana waxaa lagu qiimeeyaa qofka markuu qorayo qaabka uu qoraa la fiiriyaa iyo mawaadiicda sida uu iskugu xijiyo topicska markuu qorayo wuxuu ka kooban yahay 364 page weeye buug waa 7 cutub buu ka kooban yahay cutubka aniga marka igu yaabnaa wuxuu ahaa cutubka 6aad warbaahinta iyo saameynteeda marka qaabka uu qoray warbaahinta iyo saameynta bulshada waxaan ka xusuustaa warbaahinta iyo cadaaladda wuxuu ku xijiyay warbaahinta iyo nabadda marka fiir relation ka dhaxeeya cadaaladda iyo nabadda marka qofku markuu wax qoriyo waa garanaysaa miskaxdiisu say macnaha u fadhiday dadka buugta qoraana garan kara runtii methodology buugga marka fiirinaysa waxa laga fiiriyaa طبعا conclusion waa la akhriyaa introduction waa la fiiriyaa markaas garan kartaa buugga waxa uu yahay buugga ma aha marka buug qof references isticmaalaya ma waana intuu noolaa Allah u naxariistay wixii waaya arag oo arkay diiwaan galiyay way Soomaalida waa ku yiri dadka noocaas waa la dhintaa information buuggan wuxuu tixraac u noqonayaa maxaa la yiraahdaa warbaahinta qofkii raba inuu wax ka barto wuxuu raac u noqonayaa qofkii raba inuu dib u raaco warbaahintii hore oo dalkan ka jiri jirtay qaabkii oo gabayga ka soo bilaabmay maxaana uu China iyo wuxuu ka sheekeynayay watii caalamka way ka sheekeynayay laakiin inuu sayidka ka soo bilaabmay taariikhda iyo waagi gabayada waxa la isku xaliyay sheegi jiray dunida waxyaabo badan baa la isticmaali jiray shimbiro Greek isticmaali jireen baa jiray fariimo siyaabo badan baa la isku sheegi jiray laakiin warbaahinteenu gabay bay ka soo bilaabanaysay hadday Soomaali nahay marka taas qofku u baahan inuu tixraacan waa helaya warbaahintii dhaxana waa qof ka shaqeynaya oo joogay waxa Allah u naxariistay tan casriga oo dunidan waxa weeye hadda horay waxa la u horumartana in badan buu ka shaqeynaya oo waxa la watan social media xitaa oo soo gaaray Allah u naxariistay waxaan rabaa marka inaan ku bogaadiyo buuggan sidoo wadaay askar sheegay ardada waxa weeye media kuwa hadda ka shaqeeya bal inay iyaga naftirkooda waxa weeye xoog saaraan waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan idin sheego ninka odaga ay geeriyooday muddadii aan aqaanay waxaan ilaahay hortii la hortagayaa inuu horta nin mukhlis ah oo hilsaraada waxaan kaloo aan ka marxaati ahay shakhsiyadiisa markaan sharaxo waxaa nin aad strong u ah aad u adag laakiin dadka jilicsan iyo shacabka u nugul وزير ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdiraxmaan Yuusuf Dijana iyo wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdi Fataax Nuur Ashkira oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay taariikhda iyo sooyaalka ku suntay yahay Maxamed Aadan Xirsi Teera iyagoona dhanka kale wararka warbaahinta Puntland ma afarin u diray
أستاذ محمد طاهر عينسلي waxaa maxamed daahir caynsane iyo warbaahinta ka codsan lahaa inay sameeyaan abaalmarin sanadle ah oo la yiraahdo abaalmarinta teera ay abuurka warbaahinta waayo dunidu dadkooda wax ahasaas ay dhigaan suudaan aan ku noolaan ugu badan suudaanku waxay dhahaan waxaa jira nin yiraahdo طيب صالح oo ahaa riwaadi novelisto oo qori jiray marka jaa'izo caan ah la jaa'izo طيب صالح للروايه والقصه القصيره جائزه طيب صالح wax qorinta marka qofka meesha sida uu ahaa wax ku haboon ayaa loo sameeyaa masar oo la socotaana abwaankii waxa weeyaan maartay suugayahankii caanka ahaa ee oranjil najib mahfuud jaa'izada nobel la siiyay adduunka waxay ugu magac dareen abaalmarin loo bixiyay jaa'izad najib mahfuud lilriwaaya sidaa daraadeed waxaa ka codsan lahaa hay'adaha warbaahinta in ay sameeyaan abaalmarin sanadle ah abaalmarinta maxamed aadan xirsi teera ee hal abuurka warbaahineed dhammaanteedna waxaan nahay makhraatiga nool oo caawa ka taariikhaynaya taariikhyahankii aqoon-yahankii wariyihii weynaa oo runtii caawa buuggiisii aan na hor yaalo laakiin istaahila boqolaal buug in laga qoro kaalin walba oo qof bila aadan ah uu geli karo wuu buuxiyey waana ka soo baxay waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu naxariistii janno siiyo dembigiisana dhaafo dhaxalkuu nooga tegayna kuwa ilaahay ku anfaco oo runtii dadkiidana gaarsiiya ilaahay inuu naga dhigo gunaanadkii waxaa munaasabada soo xiray oo soo gunaanaday bandhiga buugan wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Engineer Maxamuud Caydi Dirir haddii aan nahay wasaaradda warfaafinta oo telefishinka iyo raadiyo ka tirsan yahay waxaan ballan qaadaynaa insha Allah inaanu furno waaxda tababarada wariyaasha ama warbaahinta ee teera